Hallelujah. I can ask. waxaa ii suurtagala inaan ku weydiiyo su'aalaha qaar adiga intaanan u mahadcelin Dr. Ton Muxaadir. sababtu waxay tahay barnaamijka ayuu ku furay qaab dhimrin ku dheer Bakistaanigiina halkan ayuu joogaa sidoo kale aniga Pakistan ayaan ka socdaa Kirishtaan ayaan ahay magaceygana waa Afsomali waxaana jeclahay inaan kugula sheekaysto luqadda Hindiga luqadeena suurtagal ma ii tahay suurtagal maaha walaalkayga waxaa suurtagal ah inaan fahmo luqadda Hindiga laakiin dadka halkan jooga badankood arinta ma awoodaan waxaa la helayaa dad yar oo Pakistaaniyiin ah kuwaasi oo ay suurtagal u tahay inay fahmaan luqadda Hindiga sidaa darteed ay suurtagal ku tahay ku hadal Ingiriis su'aalo badan ayaan qabaa hal su'aal soo daa waa midaas muhiimadu laakiin waxaan doonayaa inaan kugu weydiiyo luqadeena arintaas aad ayay igu hagaag luqadda Hindiga igu weydiiyay anigana Ingiriis ayaan tarjumayaa in la ogaado waa muhiim aniga wali inaan ku weydiiyo ayaan rabaa su'aalaha qaar luqadda Hindiga igu aniguna waxaan u tarjumi doonaa English soo dhawow walaal मैं पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ता रहा हूं और इस्लामियात दुनियात सब कुछ पढ़ा मैंने ठीक है वहां पर हमारे टीचर थे कारी करामत साहब तो अभी फौत हुए खुदा उनको जन्नत नसीब करे तो वहां किताबों में लिखा है कि नबी मोहम्मद सब नबियों के नूर हैं ठीक है दूसरी तरफ आपने काफी प्रोग्राम आपने देखे मैंने आपके तो आपने हमेशा लफ्ज इस्तेमाल किया हसाई हम हसाई नहीं है ठीक है बाइबल में आपने पढ़ा होगा बाइबल में आपको लफ्ज असाई कभी नहीं मिलेगा ठीक है ये आपने नाम दिया है दूसरा आप देखें जलाली किस नबी की पैदाइश जो जलाली है भाई साहब कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सवाल 2 या 3 सेंटेंसेस में करो उससे ज्यादा करेंगे तो स्पीच हो जाएगा आपका सवाल क्या सवाल कीजिए मैं जवाब दूंगा 2 या 3 सेंटेंसेस में आप सवाल कीजिए और मैं भी आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ ना तो आप क्या कीजिए हॉल हायर करो और पेपर में इश्तिहार दो कि मैं तकरीर करने वाला हूं जो आने के आएगा वो ही ना तो आज आपकी तकरीर सुनने के लिए लोग ने आए तो ये सवाल जवाब का सेशन है आप सवाल पीछे 2 या 3 सेंटेंसेस में बस आप ये बता दें इन दोनों नबियों में जलाली पैदाइश दोनों में किसकी थी कौन से 2 नबी में से नबी मोहम्मद और यसू अल मसीह में walaalka su'aal ayuu na weydiiyay ahna farqiga u dhaxeeya Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo Ciisa alayhi salaam yaa ugu badan jalaali waxa suurtagal ah inaan u tarjumo kan fadliga badan maya anigu waxaan u maleynayaa inay tahay kan ugu weyn जलाली पैदाइश कह सकते हैं आप बेहतर नहीं आप दोनों में ये बताएं कि दोनों में से सबकी मुकद्दस दोनों में से मुकद्दस पैदाइश किसकी है walaalka su'aal ayuu na weydiiyay oo ah keeba asagoo fadli badan la dhalay muqaddas macnaheedu waa keeba la dhalay asagoo daahirnimo badan waana Kirishtaan su'aal ayuu weydiinayaa taasoo isku dayayo inuu aniga i hogaamiyo arrintaani waa caadada kuwa Kirishtaantiga faafiya wuxuuna weydiinayaa keeba la dhalay isagoo daahirnimo badan kaasoo tilmaamaya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam in loo dhalay qaab caadi ah hooyo iyo aabba ayuu lahaa Ciisa Masiix alayhi salaam hooyo kaliya ayuu lahaa laakiin saaba ma lahayn sida darteed caadada kuwa Kirishtaantiga faafiya su'aashaas ay ku weydiinayaan mawduuca ay ku dul wareegaysanayaan kadibna waa ay ku weydiinayaan nabi Muhammad aabe iyo hooyo ayuu leeyahay nabi Ciisana hooyo ayuu leeyahay laakiin saaba ma lahan waayahay kee weyn waa kuma kan weyn su'aasha jawaabteedu waxa laga helayaa Quraanka suuratu Ali Imran suurada 3aad aayada 9 taasoo dhahaysa inna masala Isa inda Allahi kama masala Adam khalaqa min turab ثم قال له كن فيكون the similitude of Jesus tusaalaha Ciise eebba agtiisa waa nabi Aadam oo kale Aadam eebba baa ka abuuray carro markaasuu ku yiri ahow wuuna ahaan haddii aad rabto inaad dhahdo Ciise Masiix ayaa sareeya idan asagu waa ilaah maxaa yeelay aabba la'aan ayaa la dhalay hagaag haddaba Aadam calayhi salaam waa ilaaha weyn maxaa yeelay waxa la dhalay aabba iyo hooyo la'aan no आदम को खुदा ने बनाया था भाई साहब अपने सवाल पूछे मेरा जवाब सुनो अभी मैं जवाब खत्म नहीं हुआ आपको लेक्चर देने का तो हॉल आयर को इश्तिहार दो ये लेक्चर का टाइम नहीं है सवाल जवाब का टाइम है आप मेरा जवाब सुनिए इफ
haddii ay dhahaan ciise waa ilaah maxaa yeelay aabba ma lahan idan haddaba nebi aadam waa allaha weyn marka la waafajiyo baybalka iyo qur-aanka maxaa yeelay ma lahan aabbiyo hooyo ilaaha sarreeya waa allaha wax abuura waxaana u suurtagala inuu wax ku abuuro nuucyo kala duwan iyo waddooyin kala duwan si ay u dhashaan dad caadiya waxay u baahan tahay hooyo iyo aabbe balse allah sidoo kale waxaa u suurtagala inuu abuuro bashar aan lahayn aabbe iyo hooyo sida aadam calayhi salaam waxaana u suurtagala inuu abuuro qof hooyadiis la helayo aabbase aan lahayn sida ciise calayhi salaam iyo helidda nin iyadoo aan la helin dhadig sida xawaa allah subxaanahu watacaala waa allaha wax abuura keliya ahaanshada masiix ciise calayhi salaam inuusan lahayn aabbe taasi kama dhigayso ilaah haddii arrintu sidaa tahay aadam calayhi salaam waa allaha weyn mana waafaqayaan kirishtaanku arrintaas weligoodba idan arrintaas waa waxa uu qur-aanku sheegayo marka aad la hadlayso dadka aan muslimiinta ahayn when you talk with the people non-Muslim ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana baynakum u kaalaya kelimo ama oraax aan u simannahay aniga iyo idinkaba idan waa sidaas waxay isku dayayaan kuwa faafiya kirishtaanatiga inay malaayiga ugaarsadaan waxay isku dayayaan inay muslimiinta ugaarsadaan ayagoo qur-aanka aayado ka soo qaadanaya muslimiinta aanan garanaynin isbarbardhigga diimaha waxay ku dhici doonaan shabaqa haddii aad dhegaysatay muxaadaradayda alkhidaac fi tabshiir almasiixi dhagarta ku jirta faafinta kirishtaanatiga qaabka ay dadka ugu dhagrayaan waxyaabo qalad ah kadibna ay u daadsanayaan shabaq si ay ugu dhacaan muxaadaradayda dhammaystiran waxaad ka heli doontaa sida ay isugu dayaan kuwa kirishtaanatiga faafiyo ugaarsashada dadka sida malaayiga ay u ugaarsadaan annagu waxaan rumaysannahay inay waajib tahay inaan qofna dhagrin annagu waxaan rumaysannahay xaqa sida aan khudbadaydaba ku sheegay waxaad dhahdaa waxaa yimid xaqii waxaana tirtirmay baadilkiina wuxuu noqday mid la tirtiro waxa uu masiix ciise calayhi salaam sheegay walaal in adiga kuu sheega ayaan rabaa injiil yuuxana jabtarka 16aad cadadka 12 ilaa 14 waxaa ii ahaaday umuur badan sidoo kale si aan idinkugu sheego laakiinse ma awoodaan inaad hadda u dulqaadataan balse markuu imaado midkaasi waa ruuxdii xaqa isagu wuxuu idinku hanuunin doonaa dhammaan xaqa maxaa yeelay nafsadiisa kama hadli doono balse wixii uu maqlo ayuu ku hadlayaa wuxuuna idiin sheegi doonaa waxyaabo imaan doona idan waxaan ogaanayna waxa weeye ciise calayhi salaam inuu ka sheekeeyay nabigii ugu dambeeyay imaan doona magaciisana la yiraahdo Muhammad calayhi salaam